Assalaamu calaykum. Muddo hadda laga joogo 1210 sano ka hor waa intaynan soo saarin diyaaradii ugu horreysay eena samayn labadii wiil oo la kala oran jiray Offerlin iyo Power oo walaalaha ahaa. Waxaa jiray nin Muslim ahaa oo la oran jiray Abulqaasim Cabbaas ibn Firnaas ibn Wirdaas. waxa uu ahaa caalim iyo aqoon-yahan Muslim ah kana soo jeeda qabiilka Berberiyiinta ee dega waddanka Andalus. Cabbaas ibn Firnaas waa duuliyihii iyo cirbixiyeenkii ugu horreeyay bini'aadamka. waxa kale uu ahaa dhakhtar, xisaabiyahan, abwaan, hal abuure, aqoon-yahan ku xeel dheer culuumta chemistry-ga iyo physics-kaba. Cabbaas ibn Firnaas waxa uu ku dhashay magaalada Randa ee dalka Andalus, haddana loo yaqaan Isbaaniya, sanadku markuu ahaa 810 miilaadiga. waxa uuna ku barbaaray magaalada Qurdubah, isagoo halkaas ku bartay culuum aad u kala duwan sida cilmiga falaga, falsafada iyo chemistry-ga. wuxuu uu soo gaaray khaliifkii dowladii Andalus ee Xaakim ibn Hisham, wuxuuna ahaa Cabbaas mid u dhow madaxdii reer Andalus ilaa khaliif Xaakim ibn Hisham uu ka dhigay macallinkii cilmiga falaga iyo xidigiska. Cabbaas ibn Firnaas wuxuu hal abuuray saacad ku shaqaynaysa biyaha oo loo yaqaano miiqaatam. wuxuu ku guuleystay inuu dhagxaanta ka sameeyo weel dhala ah. sidoo kale wuxuu kaloo alifay muraayad indhood oo ay xidhaan dadka aragtidoodu liidato. dhanka kale, Cabbaas markii ugu horreysay wuxuu sameeyay aalad qeexaysa socodka xidigiska iyo meerayaasha. Abulqaasim Cabbaas ibn Firnaas ibn Wirdaas Firnaas waxa kale uu sameeyay qalinbiirowgii ugu horreeyay adduunka, wuxuuna u fududeeyay inay dadku si joogto ah wax u qoraan. Cabbaas gurigiisa wuxuu ka koobnaa qolal warshadaysan oo uu ku habeeyo aalado casriya ilaa dadkii la degnaa ay ku tilmaameen inuu waalan yahay iyo inuu yahay si xoraale ka baxay diintii Islaamka. waxaana ugu dambeyn lagu xukumay masjidka jaamaca ee magaalada Qurdubah, iyadoo la cadeeyay inuu beri ka yahay eedihii loo soo jeediyay. hal abuurkiisu ugu weynaa ugu caansanaana waa isku daygii inuu u duulo sida shimbirta oo kale. fikirkiisa in badan ayay madaxiisa ku soo noqnoqotay. ugu dambeyn, cilmi baaris badan oo muddo dheer qaadatay waxa u suurta gashay inuu u duulo sida shimbiraha oo kale. wuxuuna samaystay Cabbaas 2 baalood oo isku dheelitiraya miisaanka iyo cufad-jiidadka dhulka. waxa uuna ka soo booday manaaradda magaalada Qurdubah ugu dheer isaga oo ku duulay hawada in muddo ah oo kooban. wuxuuna isla markaana isku dayay inuu dhulka si tartiiba ugu dego, laakiin wuxuu hilmaamay in marka ay shimbirtu degayso ay dibkeeda ama dabadeeda ka caawiso inay dhulka si tartiiba ugu degto. waxa uuna ku dhacay dhulka si xooga, waxaana dhabarka ka soo gaaray jug. Cabbaas isku daygiisii cajiibka ahaa waxaa ka dhashay rajada ah in bini'aadamku mar uu ku duuli doono diyaarad. wayna dhacday oo fikirkiisii waxaa sii horumariyay reer galbeedka oo culuumta casriga intooda badan ka qaatay saynisyahanadii Muslimiinta. Allah u naxariistay Cabbaas bin Firnaas bin Wirdaas wuxuu dhintay sanadku markay ahayd 872 miilaadiga, isaga oo bini'aadamka uga tegay cilmi wax badan ka anfacay. sidaa awgeed ayaa wakaaladda cirbixiyeenka ee NASA u maamustay Cabbaas bin Firnaas in loo bixiyo magaciisa dhul ku yaal dayaxa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu muslimiinta cisigooda kor u qaado.